maamulka dawladda hoose ee magaaladan Boorama ayaa maanta laami saaray wado halbowlo ah magaaladan Boorama oo isku xiri doonta jaamacadda Camuud iyo airportka magaaladan Boorama wadadan oo in badan u xanibneed dhismaheeda isla markaana ay jireen cabasho xoogan oo qaar kamid ah ganacsatada hareeraha wadadan ka soo yeeraya isla markaana ay u jeedinayeen shirkadii qaadatay qandaraaska dhismaha wadadan iyo maamulka dawladda hoose ayaa maanta la soo afjaray iyadoo maanta wadadan la saaray laami waxaana goobjoog ka ahaa halkii wadadan maanta lagu saaray laamiga qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmadan Boorama waxayna ka warameen dhismaha wadadan iyo horumarka ay ku soo kordhin doonto magaaladan Boorama runtii aad bay aniga farxad gaar ah igu tahay maadaama kamid ah gudidii waqtiga dheer isku hawshay inay wadadan u ururiso qaaraankii ay wax kaga qaban lahayd iyadoo ilaahayna loo fududeeyay aad baan ugu mahad celinayaa runtii intii u samirtay waqtiga wadadu xidhnayd iyo intii maxaydaana ka qayb qaadatayba mana noqon doonto insha Allah ta'ala tii ugu dambaysay ee wada sidoo kale looga shaqeeyay waxay noqon doontaa kuwii ugu horeeyay kuwa badan oo Boorama dhexdeeda insha Allah inta ku dhow ka qabano ayaa ku xigi doonta xaleenay cidii waxaan ku raday gacan ka geysatay oo dhan aad baad u mahadsantahay jidkan oo ah runtii jidka ugu isticmaalka badan leh oo ah jidka magaalada halbowlaha u ah waa jidka isku xidha jaamacadda Camuud iyo airportka waana jidka centerka magaalada runtii muhiimad gaar ah ayuu jidkani markaas u leeyahay bulshada jidkan oo kulay ballarkiisa inta imika la dhigayaa maxaa la raahdaa daamurkana ama laamida la dhigayaana uu yahay 10 mitir runtii muhiimad aad iyo aad weyn iyo bilcaada ayuu ku soo kordhinayaa magaalada sidoo kale qaar kamid ah dadka shacabka gaar ahaan kuwa ku ganacsada hareeraha wadadan maanta laamiga la saaray ee isku xiri doonta jaamacadda Camuud iyo airportka magaaladan Boorama ayaa iyaguna waxay ka warbixiyeen dareenkooda ku aadan dhismaha wadadan wallahi dareenkaygu aad buu wanaagsan yahay maadaama aan maxaan dhahday dadka xaafadda ku dhaqnaanahay in wadada laamida la noo sameeyay maxaan dhahday dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay laakiin waxaanu bulshada ka codsanaynaa maadaama ay tahay wadadii meelowrka ugu weyn magaalada Boorama dhexmaysay inay raadka iyo dhibaatooyinka waxyeeleynaya ka ilaaliyaan guryaha ku soo jeedina ay ka ilaaliyaan biyaha Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.